tababarkan loo qabtay suxufiyiinta ka howlgala magaalada Burco ee caasimadda labaad ee dalka Soomaaliland ayaa waxa uu muddo 2 casho ka socday Hotel Plaza ee magaalada Burco. Tababarkan lagu qaadanayay qaabka ay suxufiyiintu uga shaqeynayaan arrimaha doorashooyinka ayaa waxa bixinay macallimiin kala ah Yunis Cali Nuur iyo Yusuf Ibrahim Warsame. Xirtaankii tababarkaasi oo ka soo qayb galay barsaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabo ayaa waxa ka hadlay Yusuf Ibrahim Warsame isduwaha wasaaradda warfaafinta gobolka Togdheer gudoomiyaha hay'adda Kabaal oo fulinaysay tababarkaasi. Aqoon ku saabsan sidii ay dadka ay u yihiin adeegaha sida ugu shaqeyn lahaayeen. 2 casho ay halkan fadhiyeen. mawduuca ay qaadanayeen waxa weeye mawduuc aad u muhiim oo xasaasi ah maanta ay ahmiyadda koowaad u tababarkan leeyahay waxa weeye tababarada Hargeysa ka dhici jireen. waa maanta burcaynu oo joognaa macallinka ay noogu yimi waa kamid runtii waxaan dawladda Burco Kabaal ku horay wax badan oo saxaafadda nabcaysanay in laga sii daayo ayaa maanta halka laga yiri Suxufi Cabdisataar Sabri oo kamid ah wariyaasha ka qayb galay tababarkaasi ayaa cabiray dareenka wariyaasha ka soo qayb galay aqoon kororsigaasi. waxa lagu daydaa oo muunad noqda oo dadkiisa haga hadba ninka awrka ka horeeya in socodkiisa leeyahay baryahan dambe wariyaasha Soomaaliland aad baa loo xirxiray macnaheedu waxay ahayd inuu wariyuhu magac kuba sii yeelanayo xaliganba aan maleynaya markii xuuto la xiray ee haddana madax saxaafadda Soomaaliland noqday aad baan uga xumahay in hay'adda xuuto kale uu hogaamiyo saxaafadda Soomaaliland waayo isaga maxkamad la geeyay inaan dambiile ahayn bay hadina hogaamiyo ruucada Yunis Cali Nuur oo suxufiyiintaasi uga faa'iideeyay qaabka ay uga hawlgali lahaayeen arrimaha doorashooyinka ayaa ka waramay muhiimadda ay leedahay xorriyatul qowlku. Dagala jaarkii male laakiin xorriyatul qowlkeeni muxuu noqday faraha laga qaad rabbana khalaqaka wa dalaqaka xorriyatul qowl baynu baranay faraha laga qaad buu noqday maxaa loo baahan yahay in koolo waqtigii la gaaray tiradii korodhay inaan tayadiina hadaba bedelo. barsaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan oo isagu munaasabadaasi soo xidhay ayaa ka hadlay gulaha suxufiyiinta u soo hiday intii uu xilka barsaabnimo ka hayay gobolka Togdheer. wax yar oo fudud ma tanna waliba waa wato xasaasi hadii jeer laga cawdo waa the role of the media in the electoral process waxa weeye waa kaalinta aynu ku leenahay waqtiga doorashooyinka oo waxyaabo lagu kala cawdo xisbiyadu kala cawdaan dawladdu kala cabato ina topic qaadataan waliba waqtigan xaadirka aad iyo aad baan u soo dhaweynaya. Maxamed Xuseen Ismaaciil Maxamed Mooto telefishinka caalamiga ee Bulsha TV magaalada Burco.